waxaan ku raacsanay ragga hore inta yiri iyo hablihiiba qurbajooga dad diidan ma nihin mana fudeedsano mana garbinayno waayo marka hore muwaadiniin seen baynu nahay dalkana ka dalka joogay ka dibadda jooga mid wax tar badan ilaahay baa og labada dhinacba mid wax taraana waa jooga mid wax matariina waa jooga marka waa laba muwaadin oo siman qof waliba wuxuu taro iyo qiimihiisa iyo qofnimadiisa qadrintiisa leeyahay muwaadiniin siman baynu nahay marka haddii hadalkaas jirana meesha ma qabto bal waxaan u haynaa inay dheer yihiin dadka dalka jooga inay qoysaskii wax taraan oo dadka dhaqaale ahaan caawiyaan waxaynu ognahay in ictiraafka Soomaaliland iyo barnaamijyada iyo hawsha gashaan aanay gelin qolada gudaha joogta badankooduna qiimaheeda aanay garanayn iyo juhdiga ku bixisaan waxa kale oo marag madoona inaanu jirin baylaha ka timaadeen qof gudaha joogo ka yimid reerihiinii oo qurba kaga timaadeen iyo caruurihii oo qaarkood hooyooyinkood ka yimaadeen kharashka baylahda dhibta ay leedahay hawsha u soo bareedeen oo laga yaabo nin wal oo qurba joogaba isagoo ilaahay ogayahay hantidiisa markuu halka yimaado inuu xisbiga sugaayo kharashka sugaayo oo ehelkii ka sugaayo oo saaxiibka shaxad ka sugaayo oo waliba laga yaabo halkan iyagoo deyn badan qaba inay ka noqdaan dareenkaas oo ognahay kaana waan dhirtiin oo idinku qadareynaa waxa kale oo idinku qadareynaa badankiina 80% rag iyo dumar aqoon baa keenta hatta kan jaamacad galini aqoon thaqafad weyn oo ilbaxnimo oo dawladnimo oo xisbinimo ah ayuu keenaa oo dalka ka caawisan qodobadaas oo waan dhirtiin annaguna waa laga yaabaa dadkii inaanu naqaano iyo xawaalaganimo inaanu dheerahay marka waxaanu ay laba gacmood midigii bidixoo walaalaa oo iskaashanaya dhaliil waa leenahay waliba anigu inaka haynay ma dhaamo waa badow qurbajooga maanaan soo dhaweyn protocol maanaan garan maanaan samayn wixii amirkan ugu lahaydana maanaan samayn markaanu tagno airportka naga qaadaan nin waliba shaqadiisu joojiyaa fagarayaal quruxoodan baa noo samaysaan aad iyo aad baa noo qadarisaan haddaan naga waayeen nagamaha xumaanaya nacaybe waa naga tamaree noo dulqaata cudurdaarka kadib waxay noo balan haddaynu kulmiyanahay wixii uu dhigayay xeerka xisbigeenu oo la mida waxa uu dhigayay barnaamijka xisbigeenu oo la mida waxa aynu isugu nimid dadkii halkan ka hadlay qodobo badan baan ku raacsanahay xisbinimada hal hirgeliyo aad iyo aad baan ku raacsanahay waayo intayna maanta halkan isugu timid oo Soomaaliland oo dhan ka kooban wicida isu keeni karta ee hawsha midayn karta ee ka warhaysa halka ugu baraysa Soomaaliland iyo halka ugu galbeedsa waa xisbi reer waa jiraan laakiin reer waliba ama degmo waliba teedun bay la daala dhacaysa mana oga deegaanka kale waxa ka jira degmo waliba waxa isleedahay aduun baa lagu dayacay aduun baa dadaal badan aduun baa Soomaaliland dadaalaya ma warhayso ta kale ee dhinac kale ka xigta waxa jiro halka quraheeda la isku ogaan kara ee marka la isxaal ogaado ee mid walba kala baahidiisa iyo wuxuu ku wanaagsan yahay ogaado ka bacdina la is aamino oo wax la yeelan karo dadana iyadoo midaysan yahay la dhaqaaqi kara waa xisbiga uu marka waa raacsanahay xisbiga hal adkay dhamaanteena arrintaa waynu wada ogolahay waanu ku dadaalayna waa dhab xisbiyadu imika inta badan qaab xisbinimo adag ma shaqeeyaan dhaqankeena ka hor yimaada duruufaheena ka hor yimaada social party dhaqankeena bulshada ayaa xisbinimada diidan oo waayo Soomaalidu inta badan kala dambeynta iyo xeerka iyo winci dhaqanaha wanu cabna nin baan inta har cad ku dilaya gardaro waa loo soo gurmanaya wax la leeyahay xirjada lagu dhameeyo diinta islaamka madax ka jaran la raaci maayo waa dambiile xabsi dheeraad xaq laga raaci maayo ka qurbajoogu uu soo qaylinaya sheekha masaajid tukiya de waa arinta waa nin hagsan de ninka hal hagaajiyo inantu way soo qaylinaysaa oday uu soo qaylinaya haddana wax la leeyahay cadaalad la ilaaliyo marka dhaqankeena iyo cadaalad iska hor yimaadaan
waana la baran doonaa inaan laga maarmayn kala dambayn dowladeed xisbi qoys shaqo dadka aniga ila daadaayeen inta ugu dhow wali maskaxdooda waxa ka guuxaya tii afweyne oo dowladba way necab yihiin gaariga bartanka dariiqa tawraya waanu soo halgamay oo ceel baxay markaa waayo xanuunkii dictatoriyada ku sii yaa ku dhigan waana wata imika ina saamaysa ee qof walaalka fadhiba dhibaato sharci darre ay ku haysato haddii la iswaraysto qof waliba sharci u baahay markaad u yartay aqalkaaga baa lagu haysta markaad u yartay haddii kala mid baa intu gaaray ka jeedaan cid ku soo qabatay aan helino dhibaato weyn wada qabna sharci darrada marka waxay baantay inuu taariikh ka feejigaan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxay noo balana oo nu ku midaysanahay in ilaahay laga yaabo diinta lagu dhaqmo waayo qofkaan dee ilaahay ka yaabin ee aan diinta islaamka ku dhaqanay baadi buu iska noqonayaa barlabaadka inaynu dalkeenna horumarkiisa ka wada shaqayno mar saddexaadka inaynu kulmiye ahaan ka wada howlgallo sidaynu inaguna u midoobi lahayn aynu xooggeena isku gelin lahayn dalkeenna hore ugu marin lahayn waxaan kusoo gabagabeynayaa inantii halkan ka hadashay inan cismaan ismaaciil cali waxay tidhi waxaa laguu sheegay go-aan adage yaan lagaa waayin horta waxaan sheegaya kulmiye oo dhammi gudayo dibad ummadda afsoomaal ay ku hadashay ajiri waxay ka iibiyeen waxaanu dooranaynaa nin malaha supermana dadkaba ka yar sarreeya oo wax walba siday ahayd ka dhigaya horta taasi waa igu dulmiyo oo expectationka badan waa jira anna rag badan oo iskalaas ahayn oo in mataanka ayaa kamid baa joogo miskiin yar oo garaaci jiray ka wadkaayeen baana raggaan iskalaas qaab badan baa halka fadhiya oo nin sidaa waxaa laga sheegay maahayna dadku baa ka mid ah waxaan leeyahay inantii waa hagaaga indhahaan isku qabanaya adoo calooladaga aan lahayn waan isku dayaa go-aanka adag baan qaadanayaa hadhow tun ha calina oo horena warde ninkii siduu xaleeyahay intiina go-aankan maanta qaadka wada raali gelin maayo waa dhab xisbiga oo ahanaysaa ku kala tegi mayno laakiin in badan baa qalad ugu arkaysa oo muxuu saa wara waay waxay ii doorateen dee aniga say la tahay war bal ra'yigaaga ku soco meel hagsan gee wax naga saar laakiin qaadan kari maayo waan ku doortay taladayda yeel dee imisaan taladooda yeelaa waxaa kaloon weliba qurbajoogga ka sii codsanaya iyo kuwa gudahaba caloodaygu waa waxa lagula ag joogo dadka ku ag jooga hadday arrintaa ku yidhahaan sax baatee ku soco waad soconaysaa laakiin haddii intii aad ku xisbiga ahaydeen inaad isku codka ahaydeen oo isku wadaadeen ku yidhaahdaan midba habeenkii kusoo gacanta ku yar qabto dee bini aadmu baa tahay moogtahay xagga adeegaysa waa hebel dee haddana xagga adeegaysa wallaahi waa hebel haddana alla oo heblaayana soo taalkaa joogtay ina waxaasay tahay dee taa ku socon kari maayo dad wixii aynu ku heshiinay sharcigu ha sarreeyo go-aanka ha la qaato dowladda ha la wanaajiyo inaynu taa ka wada midoonaa wanaagsan wiiga soo socda ama saddexda wiiga soo socda kolley waa markii dowladdii la magacaabayo ninkii siduu doonaya waayo waxbaa niyad jabi qof baa kula wanaagsan oo tirada waxa buu qabanayaa ku aanad ka firin haddii gacanta ku dhacdo kulamaan aqoon adiga ma ihi ah igala yaabin wax hagaajiyo maan isleeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad nooga raali ahaada barbaarshku waa naga xumaaday milgiina ma ahayn rag iyo dumartoona sidan waanaan isweydiin tirada waqtiga waan ku talagalno hawshii waa badan laakiin intan qolka iyo intan ma yahayn maanta inay taagtaagtaan aad iyo aad baan taariikh ka raali galayaa mar labaad waxaynu ku inoo ballana xisbigii gudaha dibadda aan ka dhisno aan isu dul qaadanno talabada wanaagsanna aan isku dhiirino qofkii aan ku qaldamay siduu doonayo iga waayona ii dul qaado berita hay doontahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu